487 429 4227 4346 لا yahay waxa weeye lambarkaaga ayaad ku sheegaysaa af Soomaali 2421 480 aduna 434202 lambarkaaga wala magalaan reer miibaan aga tahay 430 daawadayaal inagoo inoo socda ama isagoo inoo socda barnaamijkeennii su'aalaha Somsat oo ay taagan tahay weydiintii aan ilaa iyo hadda aan jawaab saxda loo helin waxaan soo gaarnay xaafadda Xamarta gaar ahaan waxa dhinacayga ah daawadayaal masaajidka loo yaqaano Masjid Al-Jaamic ama Masjid Jaamica magaalada Burco waa Burcadii hore halkan waxa taagan assalaamu calaykum calaykum asalaam bal warbixin kooban naga sii xaafadan aan joogo xaafadan joogtaan waxa la yiraahdaa Xamarta halkan waxa ka xiga Masjid Jaamici halkan waxa ka xiga maqaadi daacad halkan waxa ka xiga hudheelkii alaabtan lagu sameyn jiray marka anigu dukaanka tobakaaydan aan haystaa waa sidaa ka waran meeshan iyo maqaaxidan ma jiri jirtay weligeed way jirtay ilaa hal qarni bay dhisnay 100 sano kama yara marka sidii bay maqaaxi u tahay dadkii lahaa baa la dadkii lahaa waxa laba jeer baa la kala iibsaday waan gartay laba jeer ayaa la kala iibsaday markasta maqaaxi bay taagantay waan gartay marka Burco halkan maxay ahayd Burcadii ugu horeysay waa dhulkii loo jeeray suuqaluduga waa dhulkii carabtu joogti jirtay waa dhulkii hindidu joogi jirtay waa dhulkii baayac mustarka Burcada oo ka asaasmay magaalada Burco la yaa meesha ka asaasatay weeye waayahay daawadayaal imika waxaanu joognaa xaafadda loo yaqaano maxadka taangiga aad arkayseen waxa weeye taangiyadii loogu talagalay inay biyaha magaalada Burco waraabiyaan oo u muuqda in imika aan la adeegsan daawadayaal su'aashii ayaa taagan su'aashii ahayd sheeg lambarkaaga si dhaqso ku sheeg oo aynu weynay cid ku sheegta af Soomaali daawadayaal haddaba imika waynu fududaynaynaa su'aashii waynu fududaynaynaa qof kasta waxaanu weydiinaynaa bal inuu ku sheego lambarkiisa af Soomaali su'aashii waxaanu u dhigaynaa qaabka labaad ee fududaynta oo ah lambarkaaga ama tirada mobilka gacantaada ama telefoonka gacantaada ku sheeg af Soomaali waxa weeye 4 3 iyo 3 فافي سيجي af Soomaali ma waayahay waxa weeye lambarkaaga af Soomaali ku sheegaysaa si dhaqso lambarkayga 934 السلام عليكم ورما برنامج كسؤالات سمسات بين سوى بوضي اسكو ورما كيف الحال اخي العزيز كيفك الحمد لله هي قناه صومالي سات ام سومسات يعني زارك اهلا وسهلا قناه فضائيه صوماليه اهلا وسهلا كيفك الاخ منين الاخ من سوريا هي كم لك في ارض الصومال من 2001 من 2001 تشتغل اشتغل هنا شو بتعمل اشتغل ابار حفر الآبار كيف وجدتها؟ يعني كنت مقيم في برعو ومتجوز لا مقيم بهجيزة ومقيم برعو نفس الوقت عندي 5 أولاد متجوز واحدة عايدة قلة حاسكة عايدة قلة حمامتي عايدة قلة زوجتك متزوج واحدة صومالية ما شاء الله كم لك أولاد؟ 5 أولاد 5 5 5 أولاد 5 عيال 5 عيال ما شاء الله تعرف الصومالي؟ شوي شوي ما شاء الله ما شاء الله كيف حالك انت؟ والله نسألك سؤال نسألك سؤال هذا البرنامج يعني احنا نوزع جوائز نوزع جوائز إذا أجبت على هذا السؤال سوف تحصل على جائزة قدرها $30 دفعتها شركة كا للكهرباء أنت مستعد؟ مستعد؟ نشوف ممكن نطفي الدخان علشان نقدر نسجل اسمك الكريم؟ سامر أحمد شهاب سامر أحمد أو سامر بالغيب بالراء حياك من وين من سوريا؟ من دمشق إن شاء الله يعني ربي يعيد سوريا إليها الأمن والأمان إن شاء الله السؤال هو يا سامر أحمد السؤال هو كالتالي يعني تذكر رقم جوالك باللغة الصومالية كم رقم جوالك؟ أيوه أفر سطح الضبة أفر 0 لح أفر إبر لح عيد مرة ثانية أفر سطح الضبة أفر سطح الضبة أفر إبر لح
أفر إبر لح يعني هذا رقم أفر إبر لح إجابة سليمة إجابة سليمة إجابة سليمة عيد مرة ثانية رقمك أفر سطح الضبع أفر إبر لح ما شاء الله داوديال جوابتي صحda ahayd waxa jawaabay Saamiq Axmed oo ku sheegay lambarkiisa af Soomaali ku sheegay Saamiq Axmed waxa weeye waa qof u dhashay dalka Suuriya gaar ahaan magaalada Dimashq daawadayaal runtii waxa weeye maaha Soomaali waa Suuri runtii waxa weeye waa arin la dul istaago in badan seediga waxa Saamiq waxa weeye seediga baan ما شاء الله سومالي ودن بدلحدي تاي سومالي ودن سومالي ودن بتسيدو تاي سمع حدد كله حدد كله حدد كله حدد صح وياي سامق احمد شهاب سامق أحمد شهاب من سوريا خاصة من دمشق هو من فاز بالجائزة التي قدرها $30 نقول لك ألف مبروك داود يا رنتي وواحد دول استاغو وحوية سامق وحوية أمور دلان ديجامدا الصومالي ده صومالي برتاي وحن ويديني سؤاشي هاي كوشاك لمبركاga af Soomaali oo aan Soomaali badan soo weydiinay oo ay garan waayeen oo ay u badnaayeen adeegsanayeen luqadda qalaad gaar ahaan af Ingiriisiga sida awgeed Saamiq Axmed Shaab waxaan u gudoonsiinaynaa abaalmarin dhan $30 ay bixisay shirkadda ka bixisa adeega korontada hal taarif shirkad ka lilkahraba استخدمها كيف تجدها كيف الكهرباء كويس الحمد لله ما شاء الله ماذا تقول عنها والله كل شيء منيحه كويسه يعني 24 ساعة على طول الكهرباء متوفرة على طول ما شاء الله وحوي سامي وحولي ليركا كا وانا ديك سدا غوريغو يغو جيرا 24 ساعدود وو جوغا سدا اوغد abaalmarinta ka hay bixisayaan siinayna abaalmarin dhan $30 ألف مبروك امبلي إنه أبو الروح سبب من بايس قبوله إلا ديدي دايو سبوكم كذا عنايا دوراني ماينا سبودينا أبو سبودو صاحبته سما دبايو مدان تالتوما waxaa barnaamijkan fududeeyay bixiyeena dhammaan abaalmarinada shirkadda korontada ee ka laanteeda magaalada Burco shirkadda ka waa shirkad bixisa adeega korontada waxayna laamo ku leedahay magaalooyinka Burco Ceerigaabo iyo Hargeysa waxayna si muuqata uga hawlgashaa gudaha magaalada Burco taasoo adeegeeda gaarsiisa dhammaan xaafadaha magaalada shirkadda korontada ee ka waxay diyaar kula tahay